sigaarka soonka ma jebiyaa su-aasha koowaad weeye in ku bilaabayno qaybta su-aalaha ee dadwada baarak allahu fiikum. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sala maa bacd. marka laga soo tago inuu xaaraan yahay inuu dembi yahay waxyaabihii sheekhu tilmaamay ee ajirkani wuxu dhimayaan yahay marka intaa laga soo tago waa masalo waktigan khilaafi ka jiro hadduu yahay sigaarkan kan qiiqa ee la nuugayo la dhuuqayo khilaafkuna wuxuu ku salaysan yahay sigaarka marka la dhuuqayo maadada ku jirtaay ma halkan afka unbay ka soo noqotaayoo waa muqiiq afka iyo sanka wareegaya sida dawada buqaaqee neefta oo kale iyo mise wuxuu leeyahay wax hoos u dhaadhacaya buu leeyahay. arrintaa khilaafkeedu wuxuu sababay in la yidhaahdo daciddii tiri intan afkaa ma dhaafayo qiiqa neefta dad kale ay qaataan iyo qiiqa waddadaad socotee kugu baxaya iyo dadka cunada iyo burka iyo gadaya iyo qaca ku baxaya dadka xoolaha la raaca ama gaariga dabada ka saaran waddada socda qiiqaa iyo boodhkaa galaya dabcan kuwaasi haddayna gudaha u dhaadhicin soonka ma jebiyaan. daba waxay ku xihan tahay maadadan khilaafka taagani wuu jebiyaa iyo ma jebiyo. intaan arka waxay culimmadu u badan yihiin inuu soonka jebinayo maado dhaadhacayso oo gudaha ilaa sanbabada gaadhaysana uu leeyahay. waxyaabaha nabatiinka iyo waxyaabaha ku jira inuu leeyahay maadooyin miilmaya oo hoos u dhaadhacaya saa darteed uu soonka jebinaya. hoos u dhaadhacoodaan ka hadlaynaay ama hoos iyo sanbabaday u dhaadhacayaan ama kor iyo xagga maskaxda oo jawfkii ka mid ay gelayaan ama labadaba intaa arkay ama atibada iyo dhakhaatiirta wax ka qoray ama culimmada ku salaysay ee ka hadashay inuu soonka jebinayo wey iyadoo lagu saleeyey inay maado hoos u dhaadhacaysa ama maskaxda u gudbaysa oo qaybta jawfka la yidhahda gudaha ama hoosa inuu leeyahay. culimmada qaar yar baa arkay oo ku cileeyey sabab uga dhigay wax hoos u dhaadhacaya ma laha. marka halkaa wixii kasii dambeeya hoos u dhaadhac waxaan u malaynayaa atibada aada loo weydiiye ay tahay kolba qoralladan dhakhaatiiraan arkay uu dhaadhacayaa bay leeyihiin waxbaa gudaha gelaya. marka wuxuu lamid noqonayaa xanjadii la ruugayey xanjooyinka waxa miilmaya lehee dhaadhacaya soonka way jebiyaan. midaan wax miilmaya lahaynna soonka ma jebiso. billahi tawfiiq. jazaaka allahu khayra. su-aasha labaad sheekh maxamed cabdiwal bay ku socotaan. sheekh dad waxaa jira kelyaha laga dhaqo dhaqidda kelyaha soonka ma jebinaysaa mise waxaa weeye waa shay caadi ah? bismi illahi raxmaan raxiim. dhaqidda kelyaha dabcan haddii wax isaga laga shubayo uu yahay oo wax la gelinayo aysan jirin markaas soon ma jabayo. masaladii dhiigga baxayay oo kale la mid tahay cala sawaabna soonka ma jabiyo dhiig jidhka ka baxay. haddii markii dhiigga laga shubo kadib wax lagu shubayo ama dhiig kale lagu shubayo ama dhacaan lagu shubayo markaasi soonka inay jebinaysay qabaan culimo badan oo waxay leeyihiin cuntada la cunayo muhiimaddeedu waxa weeyaan waa inay jidhka dhacaan iyo dhiig gala noqoto. haddii dhacaankii iyo dhiiggiyo sidiisaa jidhka lagu shubo yacni cusaaradii wixii cuntadaba ka imaan lahaa natiijadiioo khaalis oo saafi ah baa jidhka la siiyey. saas daraaddeed cuniddii cabiddii bay la mid taha soonka waa jebinayaa leeyahay. waa haddii jidhka wax lagu shubayo. haddiise uun dhiigga laga miirayo isaga laakiin wax lagu shubaya ayna jirin markaas soonku ma jabayo. wallahu aclam.